الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمان ومدايدا ميل كستا جوجتان. I hope دمانتين إن لدنتين عافماد قبطان محيسنتين ميل كستا حلي كستا إيه ساعات كستا إيدينتين الله سبحانه وتعالى ديكو حفتي كسو دوادة channel كيغا وانو النادية مالا دنتين مع عافماد جين دمانتين سو دوادة إن شاء الله فيديو كان إن شاء الله بسم الله الكريم وحنا دي لقيب سنية قصة قبل ولا شيء إلى سو قيب ستي إلى سو وداكتي إن شاء الله بسم الله الكريم قصتنا سيدنا يكون بلا مسا قبل لو هو Soomaaliyeed waxay daawatay fiidiyoogii kaga hadlayay dhaqaaluhu wax ka qaato furiinka iyo isfahan la'aanta faamiliyadeena sanadahan dambe marka fiidiyoogaas ay daawatay marka waxay talay soo weydiisatay situationka ku jirtana way soo weydiisay marka insha Allah bsm الله الكريم waxaan rabaa markuu ugu horseynaa qisadeeda idinka sheekeeyo ay la soo qaybsatay marka way mahadsantahay walaasheed waxay tiri walaalo waa gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed baan ahay 5 ciyaal baan haystaa waxay degantahay ma sha Allah wadanka Mareykanka waxay tiri waxaan wadanka deganaa 12 sanadood anigoo inankayga curad wata ayaan wadankan imi odagayga ayaa intan deganaa isaga ayaa soo sponsoray markaan imi ma sha Allah waxay tiri muddo dhowr sanadood gudahoodana waxaan dhalay ilmayaal kale caruuraha kale marka caruurtu waa afarta yaryar 12 way ka yar tahay marka waliba laba waa yaryar yihiin say sheegtay cunuga ugu yar hadda 4 jir galay marka 5 caruur haysata ma sha Allah Allah u barakeeyo Allah xifdiyo marka walaalo waxay ku tiri walaale waxa jirta bay tiri markaan hadan waxay ku tiri background yar aan gadaalkaas iyo noloshayda waxay tiri anigu Soomaaliya reerkaygu waxay tiri reerkeenu reer taajiriina ama lacag badan haysta ma ahan waxay reer qutuliyoonkooda hela nolol laakiin xasiloon ku nool alxamdulillah laakiin reer lagu tilmaamo inaanu taajirinahay ma aan ayaguna waxay tiri wuxuu ka yimi reer aad u ladan ma sha Allah dad aad wuxuu bartay oo adduunka Soomaaliya adeeradiisii abayaashiisii faamiliyadooda dadka qurbaha ku bartay ay yihiin reer aad u ladan buu ka yimi waxay tiri marka aniga isagu nolol laba faamili oo kala duwan baan ka nimi sida masta dadka isqabo oo dhan badana way yar yihiin dad life style koodu isku mid yahay marka alxamdulillah waxay tiri markaan halka kan imi anigana reeda way markiiba carruur kala daldalay waxay tiri waligay ma shaqayn intaan Mareykan 12 sano aan joogay iskuul ma aadin hooyo ilmaha guriga ku haysaanaha madama carruurta wali yaryarayeen qaybna wali yaryarina qayb iskuul dhigtaan iskuul bilaabeen marka waxay tiri odagaygood isaga noo shaqeeyay isaga shaqeeya biilashana aniga marka waxay tiri hooyo stay home mom ayaanaha waxay tiri waxa jirta bay tiri gabadh walaashay oo iga weyn oo wadanka igaga soo horeysay gabadhaas oo ahayd bay tiri gabadh reerkeena aad u gacan qabatay oo waxay tiri gabadh aad lacagta u dirta xoolo badan reerka u tartay waxtar leh biisha aad reerka xubin lagaga dhaarto ku jirta aad reerku u jecel yihiin uga dambeeyaan waxay tiri walaalo markii aniga aan halka kan imi markiiba waxay iga filanaysa inaan sideedii oo kale u noqdo oo reerkii la biilo waxay ku tiri markaan imi reerka qaybiga qaado biilka la biil waxay tiri aniga markiiba cunug kala dhalay reeda way marka waxay tiri ma aan shaqayn karin lacag ma aan haysan odagayga markaan lacag weydiisto odagayga wuxuu yiri waxba ma hayo waxna ma biil karo waxay tiri walaashay sidii ay hayd oo kale ma noqon kari waaye lacag waa diri kari waaye aniga ma shaqeeyo hooyaa noqdo ilmo yaryar baan dhalay ninkii markaan lacag weydiisto waxay tiri halkaas uu ka soo buuday wuxuu leeyahay anigu lacag reerkiina u diro ma hayo mana biilayo haddii dhibaato jirto oo dhibaato soo kordho la qaybsanaya waxay tiri walaashay markaa ninkii way kala tageen muddo wax xogaa kadib single mother bay noqotay sidii bay reerka u biilaysaa sidii bay xubin reerkii uga tahay qof yacni ma sha Allah reerka waxtar weyn siisa waxay tiri markaa waxa dhacday aniga walaashay in ay dhibaatona soo dhex martay dhaweyni waxay tiri maadaama anigii aanan waxba haysan shaqaynin ninkaygana waxay tiri nin aad u baqaylo oo lacagtii iga dhaartay wixii aniga u baahanahay isiya laakiin lacag inta ka badan aan siinin igana diiday reerkayga inuu biilo ama lacag bil joogta u diro waxay tii markaan aniga walaashay dhibaato ayaana dhex martay walaashay anigi markaan anigina waxba awood waayo hooyo ilmo yar haysata ninkiina ilmihii aanan kaga tagi karin waxaan sameyn karin waxtii aniga walaalo markaa dhibaatana dhex martay walaalo reerkiiba igu dirtay adduunka dhan waxay marisay inaan doqonahay inuu ninku ii taliyo inaan ninka ka baqo inaan qof ay waxba qabsan karin aan ahay waxay tiri family-gaygii markii aan la hadlo hooyada iyo dadkii iyo walaalihii back home joog waxtii anigii saasa lee canaananaya ay waxay tiri pressure weyn baa lay saaray waxay tiri waxay noqotay inaan aniga isku buuqo inaan ninkii la dagaalo inaan walaashay la dagaalo inaan markii iyagu ila soo dagaalaan igu soo qayliyo gurigii kusoo oohin meel la fadhiisto ama isagii
aan kula dagaalo waxay tiri markaa ninkaygi markuu arkay dhibaatada aniga walaashayna dhex taagan wuxuu yiri walaashay ayaa reerkeena gurigaaga kaa duminaysa waxdi magaaladii walaashay deganayd wuu iga raray magaalo 2 saacadood u jirta oo kale oo magaalo kale ayuu nageeyay guri nooga gad halkii buu nadijay waxayna tiri wuxuu igu yiri anigu reerkeena mas'uulka ma ihi mana biili karo wixii markii dhibaato timaado oo loo soo baahdo wixii karankayga waa bixinay aniga dawladdu waxba ima siiso hadda family baynu na caruurtaas leh guri baan bixiyaa reerba ma awoodo wixii aan ku awoodo waa ku siinaya reerkaygana waa dhaqanaya laakiin reerkiina ma biilayo marka waxay tiri pressureki aniga markuu igu batay aniga waa isku buuqay ninkii waa istagaal habeenii maal waa istagaal waxay tiri xataa marba waxa gaadhay inaan ka tago haddana waxay tiri caruurtaydii oo yaryar iyo ninkayga oo dhibaato aniga igu hayn waxay noqotay inaan reerkayga iyo caruurtaydii yiraahdo hooyo caruurtaydii ma dayacayo laakiin waxay noqotay in aniga iyo familygayga relationshipka xiriirkaygii uu kala go'ay waxay noqotay aniga iyo walaashay hadda muddo 2 sanadood iyo sabti waxay tiri ma aan wada hadlin adduunka ilaahay meel walba waxay ii marisay cay meel walba waxay ii marisay inaan ahay waxay tiri reerkayga xataa hooyada iyo aabaha iyo familiyadii aabahay waxay tiri isagu waa dhaama waan wada hadalna laakiin waxay tiri rest of the family inaan laymaago inaan ka go'ay aniga inaan waxay tiri dhowrkii bilood hal mar aan wuxuu yiraahdo iska warrama laakiin waxay tiri wax kale aan aniga dadkii ka cararay waxay tiri in aniga fii kale walaale marka waxay tiri aniga wax alaaliyo waxaan sameeyay ma garanayo reerkaygina relationshipkaygii aad ayuu xun yahay anigana waxay tiri caruurshan iyo caruura baan haystaa ninkaygii kama tegi karo ninkaygi waa jeclay caruurtaydii iyo reerkaygina waa rabaa inaan haysto ninkaygina waxay tiri nin aad igu bakhayla buu noqday oo gacan adag oo waxba ii ogoleen markaan ku idhahdo waxay tiri aan shaqo tago aan si reerka u shaqeeyo waxay tiri wuxuu yiraahdaa caruurta iyaad uga tegaysaa caruurtan waxay tiri ma ogola in daycare la geeyo isaga ayaa yidhi daycare ma awoodna caruurtaydan in ajnabi koriyo ma rabo caruurtaad ahayn anaa biilasheena wax la soo taxadaraya gurigii markuu yimaado aan idhahdo aan shaqo wuxuu leeyahay anigii baa daalana gurigii imi caruurta meed ka tagaysa caruurta way kuu baahan yihiin reerkiina meed gurigaaga u dum waxay tiri marka anigii hadda waxay tiri heer waxaan taaganahay reerkaygiina aan gooyey walaashaydii kaliya qurba wadanka ila joogtay aanaan wada hadlin family hooyada iyo aabaha iyo dadkii aan xiriirkaygu aad u yaraaday kii ninkaygana aanu fiicnayn marka wax aan sameeyay ma garanayo reerkaygii waan rabaa ma shaqayn karo cunuga igu yaraa waxay tiri hadeer 4 sanadood galayaa marka waxay tiri waxaan isagii ima ogola shaqo iskuul ima ogola wixii aan u baahdo oo danahayga wuu isiiyaa oo lacag ah laakiin waxay tiri wuxuu igu yiri aniga reerkiina ma biili karo waxaan sameeyay ma garanayo marka walaalo si fiican baan u wada hadalay runtiina aniga asanaadiya waa wax adag bay ila tahay inaan qof bini'aadan iyo reer families qaba aan talo siiyo sababtoo ah number 1 guur waliba waa gaar qof kasta guurkiisu ka duwan yahay ka kale sababtoo inaga dhan isku mid ma nihin compare inaynu laba guurna la isma barbardhigi karay ama 2 qof marka is hard laakiin maadaama walaasha ay soo weydiisay wixii naftayda aan samayn lahaa oo iga daacada ayaan iyadiina kula taliyay waxaan ku okay macaanto adaygu wiilka ku qaba waxaan ku maydin reer gurigiisa ma biil gaajo ma idinku dilaa maya guriga biilashiisa wax kasta raashinka ma bixiya haa caruurta aaba xulmiya caruurta muhiimay waxay tiri aaba fiican weeyaan caruurta waxay tiri inamada banoonida aad gabdhaha kaxay waxay tiri maasha Allah inta uu soo shaqeeyo guriga markuu yimaado intuu caawin karo wuu caawin kasto nin Soomaaliyeed iyo daawamadiisu iska yartahay laakiin waxay tiri markay noqoto caruurta banoonidooda iyo waxyaabaha waxay tiri aad buu ugu fiican yahay waxay tuu noo soo shaqeeyaa waxaan ku dayac miyuu ku dila gaajo miyaad ku qabtaa may caruurta arad miyay ku qabtaa may caruurta verbal miyuu ku yahay caruurta miyuu dilaa miyuu garaaca miyuu af xun yahay maya adiga weligaa miyuu ku garaacay gacan miyuu ku qaaday af xun miyuu ku af xun yahay maya marka bakhayl ma haban ku walaa ninka waxay tiri sidoo kale ninka kan sanad walbana waxay tiri wuxuu nageeyaa vacation iskuulka caruurta marka loo xidho waxay tiri vacation buu nageeyay haddada aan kula hadlayo waxay tiri samarkii wuxuu nageeyay Dubai oo ka soo noqonay oo caruurta dhangeeyay oo meelo badan soo mariyay wixii yaryarihii aan u baahnayo dhan ii soo gaday aniga waxay tiri haddaan wuxuu baahdo oo aan weydiisto markii uu awoodo wuu isiyaa laakiin lacag badan aan u baahnay ama reerku biilo ima siiyo marka waxaan ku iri sanadooba vacation buu idin geeyaa caruurtii aaba fiican weeye ilmihiisii ilmo dhib ka sheeganaya caruurtiisa banoonidu geeya wax barashadu ka caawiya aaba ku dhex jiro involve ah weeyaan
adigii kuma gacan kuuma qaaday afxumo kuguma haysatid raashinkaaga guri buu kuu gaday meel fiican buu idin dejiyay nolol fiican baad ku jirtaa maxaad ninkaa kaga cabanaysaa aan ahayn gacan adeeg waxay tiri ninkaa wax aan kaga cabanayo inuu aniga ii diidan yahay inaan shaqo tago oon lacag keeno iyo anigoo lacag isiiyo labadaasan kaga dabxayto waa bakhayl waxaan ku ninkaas horta number 1 bakhayl maa nin sharaf leh ayaa ku qaba bakhayl waxaan ku ninka gaajada adigana kugu dilo reerkiisana gaajo ku dilo ninkaasaa bakhayl isaguna waxba isu quudin idinkana waxba idin quudin nin sanad walba waxaan ku travel idin geenaya vacation xarunta marka iskuulka la xidla la geenaya baan ku wuu yaryahay nin ilmihiisi maasha allah dowladda aan waxba ka qaadan oo caruurtiisii biilanaya waa aabe fiican caruurtiisi ka warhaya adigii kaa warhaya adiga dhibaato aadan ku qabin ilmihiisi biilanaya dowlad waxba ka qaadan waxaan ku ninkaasi nin sharaf leh aabe fiican weeye mana aha bakhayl waxaan ku adiga gaajo haddaan kugu dil oo wixii aad u baahnayd aad helaysid ma aha ninkaasi nin sharaf leh baa ku qaba ilaahay ku barakeeyo waxaa soo hadhay waxaan ku irta faamiliga marka ugu horeysa waxaan ku iri haddaynu nahay dumarka Soomaaliyeed inaynu ogaano weeyaan nimanka ina qaba reeraheena faamiliga aynu inagu ka dhalanay mas-uulka ma aha xaqna kuma laha wanaag iyo sharaf iyo xididnimo ayay ku leeyihiin laakiin xaq inuu ninkaasi biilo kuma laha hooyadiisa dhashay inuu biilo oo biil siiyo xaq bay ugu leedahay laakiin inuu kuwa hooyadan iyo aabaheen inuu biilo xaq kuma laha in uu wanaag iyo sharaf ku biilo haddii uu awoodo weeyaan oo jacayl iyo wanaagtinimo uu qabo iyo sharaf uu ku siiyo laakiin ma aha taasi marka taas oo kale hadduu yiri aniga ma awoodo xukuma lihid waxaa soo hadhay walaasha baan ku iri walaasha iyo adigu isku mid matidi number 1 ha isbarbar dhigin adigu waxaa tahay naag la qabo aan shaqaynin ninkaas xoolihiisa ku xisaabtamaya go-aanka ninka iyo adigu laba qof oo go-aan isla gaari kara ayaa tihiin ma tihid adigu nin qof soo shaqaysa ama single mother oo xoolaheeda iyada u talisa walaasha hooyo single mother weeyaan wixii ay soo shaqayso iyada ayaa mas-uulka ah ama reer ha tarto ama waxa tari maybe masha Allah ninkii hore qabanay inuu nin ku raacsan ama biilka oo kay leeyahay ay tahay marka adiga iyo walaasha horta haysbarbadhin labadiina waxaa tihiin laba qof oo kala duwan laba gabdhood oo walaalaabaa tihiin laakiin dabeecad iyo shaqsinimo waad ku kala duwantihiin labada nin idin kala qaba iyo noloshiinuna waa ku kala duwantihiin marka yaan la isbarbardhigin marka taas waa khalad walaashaana inay kugu eedayso wax aadan awoodin way ku khaldantahay sababtoo ah dee choice baad adigu leedahay awoodaada wixii weeyaan iyadu wixii awoodeeda inay sameyso weeye laakiin adiga kugu xumayso ama afxumo kugu tarto taasna walaasha ay ku khaldantay waxaan ku oran lahaa walaasha la fadhiiso la hadal ha ka go'in u sheeg waxa aad dareemaysid iyo nolosha aad ku jirtid iyo xaaladaada iyo inaad reerkaaga rabtid laakiin anigu aan kula garab taaganay wixii awoodeyda laakiin walaalay dee xoog iyo haygelin pressure aabe iyo hooyo way ku dhaleen iyo walaalaha walaal horta waa la gudboon yahay aabaha iyo hooyada ku dhalo ee xaqa kugu leh la hadal waxaa tirada hooye aabe maadaama idin gaajo qabin wixii aan idin awoodo waa idin soo diray laakiin reerkayga idinma burburinayo sababtoo ah dhibaato idinkoo ku jiro dayacan idinma dayacayo laakiin waxaanan awoodin de ma samayn karayo anigana kuwan xaq bay igu leeyihiin idinkuna xaq baad igu leedihiin marka waa inaan xaqi ilmahayga igu lahayo ninkayga igu lahaana aan ka soo baxo idinku kaadiga lahaydeen ay ga soo baxo marka pressureka iga daayay waxaan ku iri si niyada oo kalgacayla aabe iyo hooyo ula hadal inay ku fahmaan baa laga yaabaa ha ka aamusin walaalana la fadhiiso ka dhaadhici situationkaaga u sheeg walaashaygan jeclahay baa tahay inaan kaa go-o ma rabo laakiin walaalay macaanay reerkayga iyo gurigaygana waan rabaa marka taas waata ninkana waxaan ku iri waxaa laga yaabaa macaanto inaad maadaama aad different reerka kala timaadeen ninkan reerkoodii ma biilo sababta reer ladan buu maasha Allah ka yimi oo ma yaqaano dad la biiro adna reerkaagu reer la biiro way soo maadaama different lifestyle different family ka kala timaadeen waxaa laga yaabaa inaanuba uu leeyahay wayban dad u biilayaa ilaa kuwiisii baan la biilin ma u baranin reero la biilo ee waxaa kaloo laga yaabaa inaanuba awood u lahayn nin Maraykan jooga 5 ciyaal iyo xaas biilaya guri degan hawsa kharashadii oo dhan bixinaya caruurtiisi waxaa laga yaabaa walaalo inaanu awoodin marka waxaan ku iri ninkaagana u samir reerkaagana u samir adigana insha Allah bidmillaahi karin caruurta tan hadda way iska koraysa waana run daykeer kuwa qaali ilmo ka fiican ma jirto ilmo hooyadii ay kursato wixii reerkaaga dan ugu jirto samee insha Allah odaygaaga la hadal waxaa tiradaa maadaama hadda aan
caruurta ay waaweynaatay cunuga yar markuu iskuul bilaabo waxaan rabaa inaan baartayn loo xisho soo shaqeeyo insha Allah bidmillaahi karim wuu kaa yeelayaa nin fiican weeye siduu ila arko maadaama caruurta iskuul aad waxaad ku tirada ama iskuul baan aadaya bilaabaya ama 2 days baan soo shaqeynaya caruurtaada intaad caruurta iskuul ku maqayn shaqo yaraad soo shaqaysatid gurigaagana aanad dayicin marka ma aha inuu isagu go-aanka intuu gaadho yirahdo you have to do that oo aad adigina dareentid diiqad iyo resentment iyo control wada fadhiista u sheeg waxaad tirahdaa waxaan rabaa inaan iskuul barto waxaan rabaa inaan iskuul ku noqdo waxaan rabaa inaan part time shaqeeyo laakiin go-aanka la fadhiiso waxaan ku uri sidoo kale waxaad samaysaa lacagta cuntada lagu soo gado adeega waxaad tirahdaa kaash igu sii hooyaa tahaye wax kale mina warwari $100 ka goysiya $50 ka doorsa ururi meel kurid markay lacagtaasi ku ururto reerkiina u dir ama lagu soo baahdo sidoo kale isaga waxaad tirahdaa waxaan u baahanahay ayuuto aan galo iyo wuxuuna 200 iyo wuxuuna isi warintana aad ayay hadda u badan tahay waan arkay dad badan oo ka cabanaya gabdho badan oo saasoo kale pressure loo soo saaray oo la leeyahay reerkiina wax ma tartaan oo reero badan oo ku burburay ayaa jirta marka insha Allah bidmillaahi karim ilaahay waxaan ka rajaynayaa waalidiinteena iyo dadka back home iyo meel kasta joogan inay gabdhaha pressure ka daayay sababtoo gabdho badan oo hooyooyin ayaa jira ama xayd qaata ama aan shaqeyn ama income soo gelin ama ninkii qaba uu oranayo anigu reerkiina ma biilayo kuwaygiiba biila ama kuwaygiiba ma biilo waxaad marka in gabadhiina pressure la saaro iyaduna ay ninkeedii pressure saarto reerkeedii ku burburo in depression ku dhaco xanuuna ku dhacaan iyadii isku buuqdo qof kale la tartanto qof kale lagu kumburgareeyo lala barbardhigo aad ayay ila khaldantahay aniga familiyo badan ayaana saa ku dumay marka insha Allah bidmillaahi kan daas exactly anigu wixii aan sameyn lahaa aniga sanaadiyeen nin ugama tageen gaygana kuma burburiyeen daas bakhaylnimo because I don't think ninkan hadda inuu bakhayl yahay laakiin ninku hadduu reerkiisi dhaqanayo wixii awoodiisa uu ku siiyo caruurtiisi si fiican u dhaqanayo guri nolol fiican ku jira caruurtiis aabba fiican yahay aabba abiyuusahan aabba fiican oo reerkiisi iyo gurigiisi dhaqanayo oo shaqaynaya laakiin wanaagga iyo quality-ga lama helo haddii ay tahay haddii slonan bris cunayo nolosheedu ay habboon tahay waxa dhacdhaca meel kale baan ka keenay I don't think inaan gurigayga u burburina gabadh walaasheena kulama taliyeen solution baa yimaado in labadii qof wada hadasho marka insha Allah bidmillaahi karim sidoo kas walaalaheen iyo inagu isku mid manin ilaahay baa binaan door inaga kala dhigay dad walaalo waa nahay laakiin different personality iyo dabeecadaheena iyo lifestyle-keena iyo waxyaabaha isku mid maaha marka laba qof in laysla barbardhigo aad ayay aniga ila khaldan tahay reeruhuna ay guryahooda ku dumiyaan ama la tartantay heblaayo walaala intaasoo reer lacagtii u dirtay ana aan u diro ama pressure saartid ama reerkaaga waxtar aabaha iyo hooyada waalidka labada qof iyagu waxay xaq ayay kugu leeyihiin caruurtaada iyo ninkaaguna xaq ayay kugu leeyihiin so isku dayno insha Allah bidmillaahi kana sidii aynu wax u xalin lahayn laakiin inaynu hal reerna burburino reer kale u burburina I think inay wax khaldan tahay aqriya adduunba marka insha Allah bidmillaahi karim wixii aad fikrad ka qabtaan commentiga ku soo qora insha Allah bidmillaahi karim aan isdhaafsano fikradaha what do you think insha Allah bidmillaahi karim ninkaas aabba xun miya ninkaas bakhayl miya nin gabadhan miyuu ku khaldayo inuu yiraahdo reerkiina ma biilayo so insha Allah bidmillaahi karim wixii aad fikrad ka qabtaan insha Allah bidmillaahi karim until next time khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu